waxaa beryahan xiisad adag ay ka taagan tahay oo soo wajahday Soomaalida dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota kuwaasoo lagu helay inay lunsadeen lacag kor u dhaafaysa 250 milyan oo doolarka Mareykanka markaasina xabsiga loo taxaabay in ka badan 47 ruux oo Soomaali u badan dadkan la tuhunsan yahay ayaa loo haystaa inay si sharci darro ah ku qaateen lacag dhan 250 milyan oo doolarka Mareykanka oo qayb dhaqaale ka ah dowladda ugu talagashay in lagu quudiyo carruurta baahan intuu socday cudurka safmarka ee COVID-19 lacagtan ayaa la sheegay in eedeysanayaashu ay u isticmaaleen danahooda gaarka ah iyagoona ku iibsaday hanti iskugu jirta gawaari qaali iyo weliba waxyaabo kale oo qaali ah qoraal waaxda cadaaladda ee degmada Minnesota oo lagu soo qoray boggooda ayaa waxay ku sheegeen in eedeysanayaasha dhaqaalaha mashruuca ay u adeegsadeen gaadiidka raaxada dhismayaal deegaan iyo weliba kuwa ganacsi oo ku yaala Minnesota hanti ay ku samaysteen gobolada dalka Mareykanka iyo weliba Turkiga sidoo kalena ay guryo waaweyn ka dhisteen dalka Kenya sida lagu sheegay warbixinta Soomaalidan lagu eedeeyay inay dhaceen lacagta loogu talagalay carruurta in lagu quudiyo ayaa la sheegay in hantida ay dhaceen ay ku gateen gawaari qaali ah iyo weliba guryo ay ka dhisteen dalalka Turkiga iyo weliba dalka Kenya sida ay sheegtay FBI-da Mareykanka taasna beddelkeeda waxayna mudnaanta siiyeen damacooda gaarka iyagoona xaday in ka badan $1 milyan doolarka Mareykanka dhaqaalaha heer federaal ee ugu talagashay in lagu quudiyo carruurta kuwaas oo ku iibsaday gawaari aad u qaali ah iyo weliba guryo waaweyn oo ay ka dhisteen dalalka Turkiga iyo weliba dalka Kenya sidoo kalena waxay ku iibsadeen qalab aad u tiro badan isla markaana ka mid ah qalabka la isku qurxiyo sidoo kale saacado qaali ah iyo weliba waxyaabo kale oo aad u tiro badan haddaba Soomaalida dalka Mareykanka ku nool ayaa arintani walaac weyn ka muujiyay iyagoona sheegay inay xaalad adag ay la soo diristay isla markaana qof kasto Soomaali oo ka dhoofay dalka Mareykanka uu marayo baaritaan adag Cabdixakiin Xarta Sheekha oo ka mid ah dadka sida aadka u falanqeeya arrimaha oo dhacdooyinkan iyo weliba Soomaalida badan ee lacagtaasi dhacday iyo weliba kuwa la xiray ayaa maalmahanba si qotal dheer uga hadlay isagoona sheegay inuu arrintan aad hore uga digay sidoo kalena Soomaalida uu mar badan kala hadlay arrintan isagoona sheegay inuu digniin u diray 6 bilood ka hor iyo weliba markii ay arrintani socotay arrintan ayaa xiisad iyo weliba cabsi weyn ku abuurtay Soomaalida dalka Mareykanka gaar ahaan ganacsatada iyo weliba dadka waaweyn iyadoona kiiskan uu lug tala galay dad aad u tiro badan oo Soomaali ah oo weliba Soomaalida dhexdeeda caan ka ah waxaa ku jira wariyaal weliba fanaaniin iyo weliba culimo iyo qaar kale oo aad Soomaalida saameyn dhexdeeda ku leh dalka Mareykanka Cabdixakiin Xarta ayaa sheegay in arrintan ay tahay mid aad looga naxo maadaama dad Soomaaliyeed ay dhaceen lacag loogu talagalay dadka danyarta iyo weliba carruuraha in lagu quudiyo taasoo ay mutaysan karaan xabsi daayin dadka qaarkood Soomaalidan ayaa gaadhaysa 47 qof halka weli ay socoto baaritaan waxaana la xanibay dhammaan socodka Soomaalida sidoo kalena waxaa isha lagu hayaa qof kasta oo Soomaaliya oo dalka Mareykanka raba inuu ka dhoofo isla markaana uu ka baxo wararka ayaa sheegaya in Soomaalidan lacagta dhacday ay dalalka Turkiga iyo weliba Kenya ay maal gashteen isla markaana ka dhisteen guryo aad u waaweyn sidoo kale baabuurta lagu raaxaysto weliba qalab kale oo aad u tiro badan ayay ka iibsadeen lacagtaasi haddaba Cabdixakiin Xarta Sheekho arrimahaas ka hadlayna wuxuu yiri sida tan barito waxaa laga yaabaa in ay dhacdo ururin kale saacad markay tahay 5 subaxnimo sida laabaha ammaanka ee dalka Mareykanka dambi baaris FBI ay sameeyaan in barito waxaa loo yaabaa guryo loo qaato laga yaabaa ma dhahay isnoo 100% waa laga yaabaa in guryo loo qaato oo barito news uu sii baxo maxay sameeyeen Soomaalida Minnesota oo dhan maaha kooxdii burcada ahayd ee dhacday lacagtii raashinka carruurta ee gobolka Minnesota before markii ay dhiganayeen Branburg Sweet Amy Garrett maxay ahayd munaasabada ay u dabaaldegayeen maxay ahayd maxaa kalifay in loo yeero Amy in mas'uuliyiin meesha iskugu yimaadaan in Branburg loo dhigo maalinta waxa ka horeeyay waxa la joojiyay oo ay
xaakimka hadda la leeyahay xaakimkii warqaduu soo qoray oo wuxuu yidhi xaakimkii aniga waxaad ii soo caddaysaan meeshaan ku yidhi dadkan lacagta hala siiyo maan oran buu yidhi xaakimku maan oran buu yidhi waxaa dhacday lacagta ugu badan goormay cuneen goormaa waxani ay dhaceen bal soomaaliyey waxaan caawa idiin wado waa wax madaxu idin qarxi doono markii la arkay dhaqan xumada ay ku jiraan dhac waa la yara hakiyey because qof ayaa wuxuu biil garaysanayaa 5,000 oo caruura every single day meesha uu 5,000 ee caruurta ka biil garaysanayo 4 bilood ka bacdi 4 bilood oo ku xigta mid kale ayaa waxay ka biil garaysanaysaa 6,000 oo caruura a day bishii waa 1 milyan iyo 7,000 oo doolarka Mareykanka ah waa 1 milyan iyo 7,000 oo doolarka Mareykanka ah meelaha qaar waxaa dhacday in sidiyada ay tagayeen ciyaalka ka biil garaysanayeen caruurtaas ay sheegayaan ba ayna sirigaas ku noolay meelaha qaar waxaa dhacday in hal qoys ay 20 qof yiraahdaan waxbaan siinaa qoyskaasna marka laga qaato marka magacyada caruurta laga qaato aan dib loogu soo noqono cayba loogu sii daro afka cay laga geliyo waa islaamaha iyo odayaasha jaahiliinta iyo tuugta isbahaysatay waxay sameynayeen okay in yar markay lacagtii cuneen ayaa waxaa laga joojiyey biilkii markii laga joojiyey oo biilkii laga jaray ayay islaamihii iyo odayaashii iyo wadaadadii ceebta dhacday ceebtaan caawa idiin shidaayo ceebtaa caawa arki doontaan soomaali maxamed ban caawa furkaa tuuraysaan intii markii la joojiyey islaamihii iyo ciyaalkii tuugta ahaa iyo odayaashii iyo wadaadadii waa la isbahaystay markii la isbahaystay ayaa waxaa la yidhi kaalaya mudaharaad baan dhiganaay inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun mudaharaadkii ayay basa soo kireeyeen lacagta markaa in yar bay cuneen lacagta markaa wax jar weeyaan ma badna basaskii markay soo kireeyeen ayay waxay horgeeyeen guryihii walaalkee daa'uud yare guryihii bable housingka ahaa iyo guryihii sekshineedka ahaa fadeexad ka weyn oo communitiga Soomaaliyeed ku dhacday gobolka Minnesota maalintaas wallahi bisan jir guryihii bay geeyeen guryihii baa basaskii lagu soo guray waa yeeladii bable housingka deganaa ee cadka ahaa oday iyo islaan ilma yar lama reebin sababtaan u oran karin waxa weeye dowladda Mareykanku waxay ahayd dowladda caalamka ugu horeysa ee dadkeeda waqtigii COVID-19 dhaqaale cunto iyo kaash iyo guryo wax u baqabatay waxa ay dowladdu bixiyeen billions of dollars bixiyeen billions oo lagu kabayo guryaha rentiga ahaa ee dadku deganaayeen dowladdu waxa ay bixinayeen mortgage-ka dadka guryaha gatay dowladdu waxay bixinayeen unemployment dowladdu waxay bixinayeen kaash kale dowladdu waxay bixinayeen full stamp ziyaada dowladdu waxay bixinayeen jeega gooniya oo la isku soo diray islaamku badbaadiya allah barakeeya xafladeena bilicda weyn waxaa bandhigaan iskaloo baqa loo camiray war emi bilan weeya gabadhan la beegsan karin oo emi bilan weeya gabadhan la beegsan karin emi bilan weeya gabadhan la beegsan karin because waxaan lagu beegsan karin indhihii dadkii cadaanka ahay waxay goysay caruur dhinac walba laga dhirbaaxay islaamo dhinac walba iska soo dhirbaaxay odayaal marqaan ka soo daalay yay meesha horgeysay lama beegsan karo gantaaladii nuclearka ee Mareykanka qaar ka daran bay wasaaradda waxbarashada hor dhigtay waxaaba la siri karoonihii aad sheegayseenba waaba kanba karoonihii laga cararayay kanaaba ka daranba armayba wasaaradda idinku soo galaan bay gaaladiisa